macluumaad yaab leh oo ku saabsan weerarka Mareykanka Soomaaliya gudaheeda ay ka fuliyeen ee qaarkood dad masaakiin ay waxyeello ku gaartay ayaan idin hayaa tirada inta weerar ee madaxa ka weyn ee Mareykanka gudaha Soomaaliya intii yareed Trump uu hadda aqalka cad joogay ay ka fuliyeen qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doonto iyana waxa kamid ah madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa la sheegay in uu diiday inuu la kulmo ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka taas oo la sheegay inay darbaxa diblomaasiyad ku tahay dalweynaha Jarmalka sababtu maxay tahay uu ku diiday iyadoo faahfaahsan baan idin hayaa dhanka kale madaxweynaha dalka Brazil Lula da Silva ayaa sheegay in qaramada midoobay iyo hay'adaha u dooda xuquuqul insaanka ay dhibaato weyn ku noqdeen dadka reer Gaza iskana indhatireen xasuuqii labada sano Israa'iil ay ka waday gudaha Gaza waxa uu da Silva isagoo jooga Malaysia garab taagana ra'iisul wasaaraha dalka Malaysia Anwar Ibrahim waxa uu sheegay in marka la eego laba sano ay tahay waqti badan in la eegto ummad dhan oo la dhibaataynayo caalamkan uu eeganayo faahfaahin ku saabsan waxa uu halka ka doonay da Silva iyo guud ahaan Trump oo ku sii socday isagana shirka manayay ama u shaqeynayay Israa'iil ee marka uu hogaaminayay Yasir Abu Shabaab oo ah nin ay si weyn u doonayaan kooxaha iska caabinta Yasir Abu Shabaab ayaa hadda la sheegayaa inuu ku dhex dhuumanayo gudaha Gaza isla markaana kooxaha iska caabintu oo hadda yahay targetka ama cidda ugu weyn ay raadinayaan iyagoo gudaha Gaza la sheegay in lagu xirxiray qaybo badan oo ka tirsanaa maleeshiyaadkii hoos imanaya ama la shaqeynayay Yasir Abu Shabaab dhinaca kale Hamas ayaa waxa ay sidoo kale sheegtay inay soo dhibeen qaar badan oo la shaqeynayay ninkaasi dhinaca kale waxa ay sidoo kale sheegeen inay dileen qaar hoos imanayay Israa'iil isla markaana ka amar qaadanayay Yasir Abu Shabaab hadalkan waxa la sheegay inuu ku yahay darbaxa lama filaan Israa'iil waxa la sheegay in Israa'iil ay doonayso in kooxahani ay ku adeegato isla markaana iyada ay hoos yimaadaan qalalaasana ay ka wadaan si maamulka Gaza aysan gacanta ugu wada dhigin Hamas iyo kooxaha iska caabinta oo laba sano dagaal kula jiray Israa'iil marka waxay rabeen awoodda Gaza inay qaybsanto laakiin hadda waxay u muuqataa bay leeyihiin warbaahinta caalamka in midaasi mid ka duwan ay Gaza ka muuqato oo Hamas ay isku fidisay Gaza oo dhan inteeda badan marka laga reebo yellow line wixii ka dambeeyo oo Israa'iil ku sugan tahay intii Israa'iil ka baxeen dhanba waxa leeyahay si degdeg ah oo la yaab leh ay gacanta ugu dhigeen taas oo markaa ku noqonayso guul darro marka la Israa'iil dhinacaas ka soo gaarto maadaama kooxahani ay istiraatiiji ahaan ugu tala gashay haddii Israa'iil ciidankeeda heshiiskii Sharm el-Sheikh oo 9kii Oktoobar ka dhacay dalka Masar magaalada Sharm el-Sheikh lagu heshiiyay in ciidanka Israa'iil ay ka baxaan waxa la filayay waxa ahayd in kooxdan ay ka dagaalamaan laakiin qaab cajiib ayaa kooxahani loola dagaalamay telefishinka The Telegraph ee ka soo baxay Britain isna warbixin uu maanta qoray waxa uu ku sheegay in Hamas ay u muuqato koox aan meel iscunin marka la eego qaabka isku qaban qaabisay qaabka ula dagaalantay Yasir Abu Shabaab iyo kooxdiisa oo Israa'iil halkaas rabtay inay uga sii dagaalamaan oo iyagu ay sii matalaan oo garab military ay ka helaan laakiin kooxihii waxa leeyahay waqti yar ayaa hawada laga saaray oo hadda Hamas waxay taagan tahay gabagaba ay marayaan wax la qabtay wax la dilay wax fakada ay iskugu jiraan oo waxay ku rajo weyn in Yasir Abu Shabaab la soo qabto oo dadka reer Gaza hortooda wax looga qabto Telegraph oo warbixintiisa wata waxa uu sheegay in Hamas hadallada iyo qaabka ay diblomaasiyadda ay u dhaqmayaan iyo howlaha Gaza ay ka wadaan marka la eego waxay u muuqataa koox ay adag tahay inay ka dhamaato Gaza haddii loo dhisay maamulna ay qayb ka noqonayaan haddii Gaza dagaal uu ku sii soconayaan ay yihiin cidda hubka haysa ee Gaza ka dagaalamaysa Israa'iil soo taagi karto marka intaas oo dhan marka la isku daro sida warbaahinta The Telegraph ay qorayso oo ay xitaa warbaahinta Israa'iil caawa qorteen Israa'iil tani waxa leeyahay waxay ku tahay wax aysan ku xisaabtamaynin intii tiinkii abuurtay iyo geedkii ay ku abuurtay Gaza in dhaqso loo kala daadiyo waxay ku tahay xanuun waayo waxay ahayd qorshe military oo ay degeen iyo nidaam ay ugu talagaleen inay wali ku sii lug lahaadaan Gaza haddaba marka la eego baa la leeyahay sida Hamas ay caalamkana ula macaamilayso ay leedahay diyaar waxaan u nahay Gaza in lagu wareejiyo nidaam Falastiiniyiina dhinaca kalena wasaaradda caafimaadka ay shaqeynayso Gaza wasaaradda amniga ay shaqeynayso howlihii ay socdaan Gaza nadaafadii laga wado hagaajin laga samaynayo waxaas oo dhan waxa gacanta ku haya ayaa la leeyahay Hamas
isla markaana heshiis ay la tahay kooxaha kale ee dagaalamaya waxa marka la yaab la ku noqotay in Israa'iil koox ay maartay muddo dhisaysa 2 sano dagaalka socday jabhada ay diyaarisay dhamaantood hadda ay noqonayaan sida gabal si dhacayo oo kale waayo walaalaha qiimiga loo qodobka meeshan uga tageena aan toos ugu gudubno ruushka telefishinkiisa RT maanta wuxuu sii daayay warbixin yaab leh oo ku saabsan sida ruushka uu indhaha ugu hayo Soomaaliya ayaa warbixinta laga dareemaya ay leeyihiin dadka arrimahani aad uga faaloodo ruushka oo muuqdo inuu si dhow ula socdo weerarada Mareykanka uu ka fuliyo Soomaaliya ayaa telefishinkiisa caanka ah Russian Today waxa uu baahiyay inuu Mareykanka weeraradii ugu badnaa oo duqeyn hawada ah ka fuliyo Soomaaliya kuwaas oo gaaraya buu yiri 4 weerar tirada oo dhaaftay muduxileedkii hore ee Donald Trump oo ahayd oo kaliya 63 macnaha intuu Trump hadda joogo marka la isku daro waa 4 weerar ay gudaha Soomaaliya ka fuliyay oo qaarkood dad shacab masaakiin xoolo dhaqataa ay wax ku noqdeen iyadoo weeraradaasi la sheegay Mareykanka inuu ku beegsanayay waxa loogu yeeray argagixiso laakiin weerarada sida ay u dhaceen iyo isla xisaabtanka iyo marka la fiiriyo tirada weerarka xadigeeda aad buu u badan yahay 4 weerar laakiin markiisii hore dhanba marka la isku daro 4 sano waxa uu fuliyay kaliya 63 weerar 63 haddana waa 84 marka Russian Today inay warbixinta qorto waxay ku tusaysaa baa la leeyahay sida Soomaaliya iyo guud ahaan Afrikaba uu ruushka indhaha ugu hayo haddaba weeraradan 84 weerar yaa wax ku noqday dhibaato intee leeg ay dadka Soomaaliyeed ku gaartay waa warbixin u baahan in dabagal lagu sameeyo oo dawladda Soomaaliya iyo cid walba oo mas'uuliyadda ummadda hayso inay ka jawaabto hadda la soo wadanka weerarka noocan oo kala 4 weerar Soomaaliya ka fulinay Mareykanka afbuux madaxweynaha wuxuu yiri Soomaaliya waa meel aan nidaam ka jirin sharci ka jirin dawlad ka jirin madaxda Soomaalida iyo nidaamkana waa mid uu ku maadeysto oo markii uu dimuqraadiga dacaydeynayay ama cambaaraynayay wuxuu ku dacayday waxay xasuusiyeen buu yiri madaxda Soomaaliya ay xasuusiyeen qaabkay u dhaqmayaan macnaha madaxda Soomaaliya qaabkay u dhaqmayaan ay dimuqraadiga xasuusiyeen macnaha wuxuu leeyahay waa wadankii dhan buu u gafayaa Donald Trump waxa uu ilowsan yahay Soomaaliya inay hadda member of